السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصحابة وإذن سلامي ميل كستو أدونك جوجتان دمانتين ورمسيتهين أدنك الصحابة يانتو وان كلا مخنين الدنيا أيا لا دبا أردايي الدنيا نوان دماتو أديك اللي دما هيست مروح عمل لكن إذا مرنبا دما ميسو مركا ورم حالدينا أيانتا waa layska mashquulay adduunya la burihayay marka taas waa taas maanta waxaan noo wadaa insha Allah rabaa inaan nooga faa'iideeyo oo hore horta waxaan idin tusay anigoo suuqa ka soo adeegay waxaan soo adeegay iyo siyaabahan u isticmaalay waa idin la socodsiin doonaa idin dhahay asxaabay sida idin muuqataba waxa waaye nolosha ayaan rabaa insha Allah nolosheyda iyo saacada noolahay ayaan rabaa insha Allah inaan wax ka bedelo saas daraadeed waxaas dhahay fartoonay ha isku ekaynin ee la wadaag asxaabtaada insha Allah marka maanta walaay hor alaabta aan soo gaday waxay aheeday saxankan ma u jeedin saxankan dhalada aan rabaa insha Allah aan soo gaday waa kaas waxaan soo saaray tufaaxi iyo liinta hadda maanta ii saaran waxaa haysato kala saari kartaa sidii mooska iyo wixii lamid ah marka taas waa taas ilmaha hadeed miiska wuxuu soo saarto xilli kulaylaha lagu jiraa marka ilmaha markaad miiska wuxuu soo saarto canugu tufaaxiisa ula boodayaa liintiisa ama wixii markaas u saaran oo diyaarsan saxankaana waa kana isiga waa kana taano soo diyaariyey waxaan ugu xiga saxankan isigana waxaa igu jiro malab insha Allah maadaama aan diet gelaayo mar rabo wax sokor la dhan inaan isticmaalo saas daraadeed labadan malab oo kala nuuc ah aan insha Allah soo gaday oo soo saartay iyo wixii kale oo markaas aan u baahanahay inaan saarto marka waxay ka caawinayaan nadaafada iyo jadwalka guriga wuxuu ku saxmaa markii wixii ay hal weel iskula ka jiraan marka kan waa aragteen lamo waa aragteen mahano saddex dharaan maxaa noo wadaa maanta asxaabi alaabtan waa Herbalife waxaa waaye waxyaabaha qofka hadduu rabo inuu diet galo kale ama uu rabo inuu iscaateeyo ama inuu iscayiliyo rabo qofku soo u isticmaalayo isagay ku xiran tahay kii labaad marka waa kana waxaa ii saaran alaabtan Herbalife ii saaran kii saddexaad isagana waa idin tusayaa insha Allah Herbalife marka maxaa waaye Herbalife aniga waxaan ku jiraa dadka aan caatada ahayn waa iska dareemi kartiin waxaan hamaanohe taas waa kabtan dadka aan caatada ahayn marka dad caata ahayn maxaa waaye jadwalku wuu kaa qaldamaya waxaa waaye noloshaada qofku waxaa rabaa inuu qof caataha waxaa jirto caajisan daalan marka waxaa ma caataha ma caayil ahaaw cuntada aad cunayso waa inay tahay cunto herbal oo cunto borotiinkeeda iyo wax kasta maasha Allah ay dhameystiran yihiin waxa waa caato tahay waxaa jira maanta dad badan oo caata laakiin ay ka caafimaad badan yihiin dad badan oo burburan qofas ay taqaano marka ani ahaan hadda kuma jiro dadka caatada marka waxaan rabaa insha Allah inaan sameeyo diet sameeyo ama iscaateyn haddii ilaahay yiraahdo anoo markaa iscaateyhayo ma rabo cunto aan caafimaad lahayn inaan cuno ama maalin aan cuntada iska jaro dhahayaa maanta cunto inaan cunteeyo ma ahan cuntada waa iska joojinayaa sababtuna waxay tahay waa ku cayilaa haddaan saas dhaho dhib ka jira wuxuu naqahayaa aan maalinna u soo xiiso cuntadii isku aruuriyo maalinna aan cuntadii aan iska jaro oon baahi isku dilo haddaan baahi isku dilo laba maalin kadib waxay noqonaysaa inaan baahi aan cuntadii usoo xiiso dabadeedna dhub isku siiyo maxaa looga maarmi karaa Herbalife looga maarmi karaa Herbalife waxaa waaye qofkii caata way isticmaali kartaa oo rabto inay iscayiliso qofka caata oo rabto inay lifestyle-keeda iska dhisto oo rabto qof energy iyo tabar iyo xayi oo caafimaad leh oo mar kastaba qof active qofku markuu active yahay wax kasta u suuragelaayo wax kasta u qabsoomayo laakiin haddaa caata tahay lafa xanuun qabtid daalan tahay oo cunto caafimaad aad cunaynin waa dareemi kartaa xanaaq joogto iyo mar kastaba qof istoof haysa hoon tabar iyo midna aan lahayn marka hadda waa idin tusay saxankii weynay waa kana
ilmahaas alaabtaas igu saaran tahay kaas hadda malabkan saartay waa kii labaad waa kan kii saddexaadna waa kana asigana harb alaabtaana ii saaran kana saddexaadna kaasaa ii saaran kan afaraadna waa idin tusaa marka Herbalife marka waa alaabtaan dacaarteeday wadataa waa ujeedaan kan waa dacaar caloosha ayuu jaraa dadkii baruurta leh baruur shiilow baruurta lagu shiilaa tan waa shaahi waaye shaahana sigana Herbalife waaye marka waa kana kusoo dhawaada caagi lagu cabayo waa kana biyihii waa kuwaana oo ujeedana malaha dhaladeedana waa tanaa ka mareebano wax kasta ay hore idin tusay haddana waa idin tusoo haya maahano he dhaladina waa tanaa iyadana maxaa igu jiro biyo 1 liitar iyo koob ay qaadaa biyahaas madow waa kuwaana inay cabo waa qalalaw yaa kii kalena waa idin tusoo haya waa idin tusaya laakiin haddana waxaan rabaa wax yar inaa idin tuso insha allah waa kana marka inta waxaa igu jirto timir inta waxaa igu jira geedkan kalba un lows iska dhawaa un lows kala nooca intana waa lows kale intana waa lows kale lows makaan marka waxaa waaye waa wax aan sokor aan lahayn sokor ma lahan cusbo ma lahan waa bilaa dhadhan markay tahay waxay ka saacidaysaa inaad haddaad cunto sokor iyo macaan iyo cusbo iyo macaan midna ku kori maayo wax yar aad ka cunaysaa wax yar aad ka cunaysaa koob shaahad cabaysaa Herbalife baahida dhan meeshaas ku iloobaysaa waad ku qaday kartaa ama waa ku quraaca kartaa jadwalkana saan u samaystay yaa rooti inaan soo marsado yaa canjeerada waa ilma canjeero la cuno waa dhamaaday yaa marka insha Allah taala ayadana saan u isticmaali doono iyo maalin lahayga jadwadkayga maalin la ama week la insha Allah wadin soo wadaagi doona dadka rabaan inay iscaateeyaan dadka caata rabaan inay ku noolaadaan nolol energy laho active ahayna ku noolaato qof markastaba soo jeedoon daalanahayn shaahayga marka geedkan malabkan waa original malabkan original waay waxa ku qoran Monica Doctor yaa mujeedin waa malabka waxa waaye oo originalka ah dan culumadu waxay u qoraan waa kan oo culumadu u qoraan dadka kan marka culumadu waxay u qoraan shiiqyaasha dadka oo cilaajka waa geedka ay qoraan waaye malabka ay qoraan suuqa hadda tagto waa arkaysaa sawir ahaan aad arkaysaa alla kan malabkii la sheegay miya waad soo qabsamaagaysaa laakiin waxba kuma jiraan maxaa yeelay keligiis hadda markaan la soo jabin oo caadi yahay waa $80 euro ama wixii kaloo lamida ama iska dhe faran iska dhe waxa adiga rabtid oo isticmaasho marka goormaa la soo gataa waaye yaa markay jaban tahay marka adigu markaas adan waa malab yaa marka adigu adan maxaa waxa sheeg adan markaas adan muctaad u ahayn waxaa iska sugaysaa markay soo jabto labada xaba 80 ay noqonaysaa kaaliga had gada kartaa saaxiibta had wada gada kartiin ama saaxiibta qof kastaba rag iyo dumar qofka u baahan 80 waaye laba xaba 80 marka lagu dhaho hadaadan haysan la qaybso asxaabtaada hadii kale waxaad markasto yaa wixii adiga u baahan tahay markastaba inaad niyada ku haysad ka fikirto ilaahay iyo rabbi raxmaano yaa geedkii malabka ahay mar uun hadan heli lahaa inaad tiraahdo ma ahan marka insha Allah hadana waxaan tusayaa weelki saddexaad oo qaybtaan ahay mujeedin oo idin tusayaa insha Allah daraan mujeedin dik maxaa ku jiro waa fitamiinaadkii mujeedin fiisa oli anaka saliida malayga magnesium ayadana qofka daawadan idan waxa waaye calcium ka maasha Allah ku sii haysaa awood iyo energy kan waxa waaye waa fitamiin daygi kan waxa waaye wax xabad sawdadii yaa kan waxa waaye waa tanna waxa waaye isheeg bahash xay aheeday waxa waaye mar af Soomaaliga iska dhuma ma ahano
تي وحي هي شاك تي إي شاك هي عدنك عاوية تي كل هذا اللي اسمريها يا وحاواي مساجو waaye qofka markii korku xanuunayo ilmo markay kaa qunfacaan idoo ilma iyo qof weyn waa jirtaa tan sidoo kale waa daawaad xabad sawdadii kama roobano kulli waa daawo masaajada waa daawo xabad sawdadii vitamin daygi magnesiumki kaasigana kaasi hayay kan xawaha ay sheegay calcium kama maadaama marka wadan qabo joogno fiso oligi kaliida oo malayga sidoo kale waa vitamin D isigana marka alaabtaan iyadana waa tana alaabtaan iyadana waxaa waaye waa alaab maasha allah inaba aan caadi ahayn alaabtaan aloe vera ala dhahaa alaabtaan waxay iga soo gaartay gabar saaxiibtay oo walaashay ah oo la dhahayo xalimo dagaandug youtube-keeda waxaa waaye familka iskaashato ayaad qoraysaa insha allah waa arki doontaa hadday soo gelisay iyo haddayna soo gelinba alaabtaan gabartaasaa gado waa gabar walaashayna ah qofka rabto wuu la xiriiri karaa waxaa waaye waa alaab inaba aan caadi ahayn ama iscaatay ama caafimaadkaa ka shaqeey waxayna u rooneen malahan hadda kan waa kareemka habeen iyo maalina isticmaalaysaa waa kaasaahe aloe vera xaliimo dagaando ku yaaca channelkeeda insha allah ida soo geli doonto hanta kareem karkanuna waa kareemkii gacmaha marka insha allah markasta waxa waaye caafimaadkaaga jir ahaan gudaha iyo bannaankaba uga dadaal insha allahu tacaala asxaabay marka aada u mahadsantihiin maanta waxaan rabaa intaan inaa idin la qaybsado ayaanta waa iska mashquulay oo adduunyaha la iska burburiyay maadaama xilli fasaxa ee soo galaya lagu jiro dadku waa iska mashquul badan yihiin marka waa kana hee 3 shay aan hore soo gadaayay hal aan shaqadiisa si toos ah u gudahayno kuma jiro insha allah herbal life kana soo isticmaali doono iyo waxaan ka faa'iiday iyo insha allah waa idin la wadaagi doonaa biidnillah waa idin salaamaya meel kastoo adduunka ka joogtaan caafimaadkiina ku dadaala caafimaadkiina ka shaqeeya insha allah tacaala marka intaad meel inta tagto canjeere maraq ama rooti ismar dhub isku sii laheeday bishahaas herbal life karsanaysaa waxyar malab had isku siisanaysaa daarta sidiisa aad ku cabi kartaan waad ku cabeynaysaa waa kaasaahe subaxdii dacartaasaa cabaysaa kadib sheegaasaad soo qasanaysaa jag maasha allah caaraaf macaan caloosha dig yaa baahay dhan ma dareemaysid baahay haddaa dareentana waxaa waaye cuntooyinkaygana caafimaad kale sida malayga iyo wixii kaloo lamid ah isticmaali kartaa iyo cuntooyinka qaybtooda madow wax kastood isticmaalayana calooshaada ha la tashani caafimaadkaaga ka shaqay insha allah taasoo anigu horey noo soo daashatay anaga idin la hadlahay igu dhacday marka insha allah aada idin salaamaya meel kastoo adduunka ka joogtaan fiidowgan hala sheer gareeyo subscribe intaan horu saarin ha u saarto inta horu saartana waad ku mahadsantihiin maasha allah jasaakum allahu khayran wajasaa waan idin salaamayaa fiidowgan fiidowga xigo iyo farxad iyo insha allah ilaahay iyo farxad nagu gaarsiiyo